assalaamu calaykum waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan waqtiga waxa uu gaaray xilligii aan idiin soo gudbin jirnay xubintii ja iyo sha oo aynu ka soo gaabinay juxa xigmad iyo sheeko xubintan waxaad mar kasta ka daawataan kanaalka shaam show waxaana idinla socodsiiya anigoo ah cabdulbaasid xasan nuur shaam ku soo dhawaad qaybtii labaad. maalin ayaa suuq ku yaala Masar waxaa la keenay laba adoon si loo iibiyo mid walba oo kamid ah labada adoon waxaa la weydiiyey maxaad jeceshahay inaad noqoto mustaqbalka mid wuxuu ku jawaabay waxaan jeclahay inaan cuno cunto noocaan ugu jeclahay midna wuxuu ku jawaabay waxaan jeclahay inaan noqdo madaxweynaha waddanka Masar muddo kadib midkii jeclay inuu cuno cuntada nooca uu jecel yahay waxa uu cunto kariye ka noqday mid ka mid ah maqaayadaha ku yaala waddanka Masar midkii kale ee jeclay inuu noqdo madaxweynaha waddanka Masar waa uu noqday sheekadan waxaynu ka fahmaynaa in qofka uu yeesho hami sare weliba hamigiisa uu ka guulgaari karo ninkaani asigoo adoon ah oo aanan xur ahayn ayuu waxa uu jeclaan jiray inuu noqdo madaxweyne waa uuna ka guul gaaray oo waxa uu noqday madaxweyne halkaasi ayaan kusoo gabagabeynaynaa qaybtii labaad ee xubinteeni jaxa isha wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu.